hadduu dhuganto geel qabo madhadhamiyo geedaha u godan shadhuubtaay ana cudurkanigu dhacay ومد الله إيقودابو وبالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدبان إذين سلام يا دمانتي بملك استعيمر وبوادوني دا تعالى دا دافي دا كتشوكتان أماك نوشين بوانا كتونا إن ما انتو حندوني أنا لقيب صدو قصوينكي أنا لقيب سنشري قصة كامل أحيان دوني أنا لقيب صدو إن كستوان إن فربضان إذي كلا راقي قصة دي أدي عدبان وحمهاي oo aan mataqaanaa wacyigelin iyo dhanka wacyigelintan aad iyo aad mataqaanaa ugu fiicanahay gacmaha igu fududeen inaan wacyigelin iyo mataqaanaa waxyaabo kale aan mataqaanaa aad iyo aad ugu mashquulay laakiin se maanta sooyinka in la qaybsan jiray qisa kamid ah ayaan in soo wadaa tii aan idin bilaabay last weekina insha Allah inteedii dambe wiiga dambe ayaan idin soo dhameyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka qisadan aan maanta idin qaybsanayaa waxay tahay mataqaanaa qiso aad iyo aad mataqaanaa horta dhikar leh oo mataqaanaa aad dumar hadaatiin mataqaanaa in fara badan aad iyo aad uga damqanaysaan iyo xooyaan qiso maxaa loo oran jiray xasaabad meel loo oran jiray xasaabad leh xasaasiyad leh weeyaan marka qisada waxay soo dirtay inanba ay soo dirtay inanta ay soo dirtay ayaa mataqaanaa qisadan ay ida laftigeeda ay ku dhacday iyadana haysata wali alaankaana ayada ayaa dhex fadhida qisada ay ku jirtaa marka runtii inantani waxay degan tahay dalkan UK aan ku noolahay iyaduna degan tahay runtii aad iyo aad baan u salaamaya waxay haysataa 3 ciyaal ayay haysataa waxay tiri nin ayaan mataqaanaa markii ugu horeysay inantu waxay ahayd gabadh single mother oo in ma yar haysata kaliya ina yar bay haysatay nin hore soo kala tageen guur hore ka soo burburay oo dacalfkii uu dhamaaday moran karna mataqaanaa laakiin dacalfkii waa dhamaaday marka guurka hore markuu soo burburay ina yar bay haysatay ina ka yar ka bacdi waxay heleen oo ay isguursadeen mataqaanaa inan kale oo Soomaaliya inanka kale Soomaaliga markay isguursadeen ayaa waxay tiri mataqaanaa aan isbaranaynay ayaa mataqaanaa ninku markuu horeysay waxay tiri aan si fiican isku baranay si fiican uu soo dhaweeyay si fiican mataqaanaa wadani wanaagsan waxay tiri muddo aad iyo aad u dheer mataqaanaa nin wanaagsan saa ka dhig ayaa waxay tiri igu yiri bay tiri xaas waan leeyahay gabadh baan qabaa aruna waan leeyahay marka ninku wuxuu haystaa 6 ciyaal ayuu haystaa gabadhna uu qaba xaasna uu leeyahay marka gabadhu waxay tiri 6 ciyaal haysataa gabadh leedahay oo reer waxay tiri marka aniga meelan ka noqdo ma haysto ninkani mataqaanaa dee iska jeclaysiiyay oo iska baray oo qof aan bartay oo aan isdhex galnay ayuu noqday marka waxay tiri meelan ka noqdo ayaa mataqaanaa waxay ugu noqotay bitiiciiri in far badan baan sabay tiri mataqaanaa meel ciriiri ma gali kartid nafta ka jar oo waxa galin haddana waxay tiri waan mataqaanaa control kar waaye marka waxa noqotay bitiiciiri inaan ilaado way xaaskaaga xitaa adoo qaba ayaa mataqaanaa kugu galiyay kugu guursanay marka inantii sidii ninkii mataqaanaa ay ku guursatay marka markuu guursanayay ninku conditional lahaa wuxuu condition ka leeyahay waxa weeyaan buu yiri waan ku guursanaya laakiin waxa ku guursanaya qarsoodi inaan ku qariyo oo aanan mataqaanaa cidna ku sheegin laakiin si aan de mataqaanaa waxa xaq igu leedahay iyo mataqaanaa biilkaaga iyo waxa iga baahan tahay wax walba aan anigu ku dhameeyo laakiin aan mataqaanaa cidna ii sheegin cidna aan odhanin ninkaas ay qaba marka waxay diwaayay baan ku dhaweytay sidii waan ku galay marka ninkii sidii ku guursaday gabadha wuxuu ku guursaday waxa la yiraahdo qarsoodi guur meel la yiraahdo soo xaleeda qurbasire waxaankaas adigu guur la qarinayo oo aan la sheegaynin oo ninku qaba oo haddana aad u reysanaysid alano sidii ku guursaday adigu waxa yahay ku daalin sidii gabadhii ninkii ku guursaday markuu guursaday ayuu mataqaanaa gabadhi kalena marka uu qabay 6 carruur haysay marka gabadha kale 6 carruur haysa waa gabadhu mataqaanaa yani jecel yahay saan ka dareemay uu gabadhu aad u jecel yahay xaaskiisa uu jecel yahay carruurtiisa uu jecel yahay marka ma jeclada inay gabadhaas mataqaanaa ay maqasho gabadh kale uu guursaday
inay maqasho waxyaaba caynkaasoo kalaa bcos qalbigeedu ilaalinaya aad iyo aad buu ilaaliyaa marka wuxuu ku yidhahdaa habeenkii oo kale ayaa waxaan ku jiraa wuxuu ku yidhahdaa night shift baan habeenkii shaqeeya marka habeenkii markuu night shift ka shaqeynayo ayuu gabadhan kale u yimaadaa oo gabadhan kale mataqaanaaye ula joogaa gabadhaa kalena dee aroortiibuu mataqaanaa qayb u tagaa aroortiibuu gurigeeda seexdaa uu kasoo kaca shaqadiisu galaa habeenkiina night shiftka xaggan u ka galaa sheeka caynkaasoo kalaa haddana saa markaad u eegtid timekii ugu badnaa gabadhan buu siinayaa waa kan habeenkii oo dhan night shiftiga la jooga timekii kale gabadhaas waxba lama joogo time badan lama joogo lama qaato in yaroo aroortii guriga uu ku yara dhaco oo seexdo oo haddana kasoo baxo time fara badan ma hesho gabadhaas way dulmaanta aad bay dulmaanta runtii marka haddana wuu jecelyihi haddana wuu jecelyihi marka waxay tiri saas waxay tiri habeenkii ugu iman jiray gabadhan night shiftigula joogi jiray saas marka mataqaana waa arrimaha u kala dabari jiray u kala wadi jiray in yaroo shaqo ahoo aroortii gelinka dambe uu mataqaanaa ka gaarsiiyo dee now uu shaqayn jiray runtii marka gabadhaa weyne yacni wax beela iyo wax caynkaasoo kale ugama baahna waxay ahayd gabadh iyadoo isku qoran oo iyadoo isku kalsoon oo iyadoo mataqaanaa arrimaheeda gooni ay ugu mataqaanaa ugu xidhan yihiin laakiin ninkani uu dee jeebadiisu ay tahay jeebad mataqaanaa aan cidna biilin cidna waxba siinaynin shilinkaa yar waxaa yaro soo shaqaystana gabadhan uu night shiftiga mataqaanaa la galo habeenkii ayuu ku beeli jiro siin jiray runtii ama uu dee kuba caawin jiro siin jiray runtii marka waxay tiri gabadhii markuu muddo mataqaanaa sidii ku qabay oo muddo sidii ku wada joogeen ayaa waxaa dhacday in ay mataqaanaa gabadha uur yeelatay gabadha markay uur yeelatay ayaa dee ilaa gabadhu heeray leedahay family bay leedahay dad bay ka dhalatay fareen bay leedahay cid walba way leedahay uurkii markay yeelatay dee gabadha waxay tiri uur baan leeyahay familygayga dadkii way weydiinaya waxay odhanayaan maxay uurkaa leedahay ilaanta siloon ku qariyey waa inaan sheego oo aan idhaahdo mataqaanaa dee ninkaan qabnaa ninkan ilmaha dhalay wuxuu yidhi may ha sheegin aniga ha sheegin waxaad tirahdaa nin baa i qaba oo ilmaha dhalay laakiin aniga ha sheegin meesha bicturkayga ha soo dhigin saas ahaa waxay tii sidii baan haddana kaga yeelayba waba ka yeeshay waa gabadh aada u wanaagsanba waan ka yeelay bay tiri markay ka yeeshay ayay ilmihii umushay waxay umushay inan yarba umushay inankii yaraa markay umushay ayaa waxay tiri inankii yaraa umushay inankii yaraa sidiiba waxay tiri kusoo koriya anagu sida isku qarinaya faamiligayga dadkii o dhan waxay tiri way ii yimaadeen umushay dee waa lay umurka saaray dadkii o dhan way weydiiyeen oo ilmaha aabahimiye wadankuu joogayoo wuu dhofo u maqanya muu dhofo u maqanya oo goormaha ninka mataqaanaa isguursateen oo ninka maanaan horo maanaan arag oo waa caynka soomaalida iska garanaysaayo su-aalaheedu aad iyo aad bay fara badeen waxay tiri su-aalihiiba waxay tiri meel allaali meela kaga dhurtaa garan waaye maya waan isguursanay wax iyagoo private bay iska ahaayeen wax iska qarsoon bay ahaayeen wuu soo noqonaya markuu soo noqdeen insha allah idin keenaya isbaran doontaan saas ahaa waaye ilmihii koowaad saabay ku dhashay oo saabay ilmihii koowaad ay ku mooda ay ku korisay haddana ilaa waa nin wadankii joogo oo magaaladii joogo meel kuma maqnee haddana ilmihii markay ay mataqaanaa uu ilaa iyo 6 bilood meelaha markuu ilmihii yaraa jiray ayaa haddana uur kala yeelatay uurkii kale markay yeelatay ayaa haddana dee mataqaanaa family weli aalanka ismay arag weli aalanka ninkan cid may arag weli aalanka gabadhan sidii bay ninka u qarinaysa ay u hortaagan tahay dabtana waxay ku tiri ilmihii labaad baa maraya dadkiina way mataqaanaa weydiinay xitaa xaafadii dariskii ayaa da weydiina oranaya nahme ninka ku qabaatay waxaan majinun baa kaa dhara ku ureeya maanaan arag nin ku qababa ilawa nin habeenkii intuu soo gal guriga haddana habeenkii gudaya carraya oo dadkii iska ilaalinaya weeyaan wejigiisa in la arko oo layado ninkaasaa gabadhaa qaba ayuu ilaalinaya iska ilaalinaya waxay tiri xooyaa hadal ku daalina gabadhii ilmihii labaad sidii bay mataqaanaa ilmihii labaadna ay ku umushaydo sidoo qarsoon oo sidiisu qarinaysa ilmihii labaad umusha ilmihii labaad markay umushay dee way ballaaratay soo maaha ilmo horena way sii haysata 3 ciyaal gabadha haysata way ballaaratay soo maaha waxay ku tiri hadda walaal imika now aan mataqaanaa dadka aan u sheegno aan dhahdo waxay tahay waa kan carruurteeda abad ilaa 2 carruur aan hayaay 2 carruur dhan ma qarin kara abood ma qarin karee isa soo bannaan dhiga aan ku sheego waybu yaabay kala haatagin ma sheegaysid haddaad sheegtid way noo kala dhammaatay halkaasaan kaaga dhaqaaqaya adagii 2 carruurba ma sheegi kartid kuma sheegi karahaa ma sheegi kartid alxaduna ku bahay yaa عجيب
sidii markaa ku qariyay markaa waxay tiri gabadhiisan kale uu qabo ee 6 carruur haysta ayaa waxay tiri aan waxay tiri de soo baaray oo soo ogaaday waxay tiri dabeetana gabadhu Facebook bay leedahay Facebookeedii ayaa waxay tiri gabadha waxay tiri aan argariyan ku darsaday way tiri way soo aqbashay gabadhii anagu waxay tiri fareen baan noqonay gabadhii markay fareen la noqotay ayaa gabadhii baa de waa gabadh waxay tiri proud ku ah ninkeedii ma fahmaysaa waxay tiri iyadii isagii baaga wada fadhiya iyadii isagii mataqaana caruurtii dhex jooga wada sawiran video waa iska soo duubay iyadii isagii videogii mataqaana ku wada jira ay Facebook soo dhigaysa mar bogsabo la shakaranaysa way Facebook kusoo waskaraysa because waa ninkeedii ku qanacsano happy ko am fahmaysaa isagii Facebook waxay tiri picture-kii ugu weynaaye maxaa la oran jiray coverka weynaa waxay tiri gabadhiisi baa u saaran oo gabadhiisi u saartay kii kale isagay gabadhiisi baa wada saaran ubadkiisi ciyaalkiisi baa waxay tiri Facebook uga baxo gabadhiisi baa uga buuxda everyday gabadhiisi sawirku ka qaaday oo soo dhigay this is my beautiful wife ninka helaan la waxay tiri lucky ah أنا أدونك متقناي هو إذا أبغى دعية this is my beautiful wife وكفاني أتبع وكفاني كودي يدينا so sad it is so sad والله أتمنى أنت أيضا وياه واحد مركا واحد فيسبوك ما نسكت دعوة ويت every day قبل يصور عصب يصور دكتور every day قبل إذا ينكي وصور بيصور عصب صور دكتور سو gurigiisii mataqaana dhex fadhiya ciyaalka eryanaya soo duubaysaa waxay tiri soo dhigaysaa aabihii ilmihiisii la ciyaaraya aabihii ilmihii this is our family beautiful family waxaasay soo duubaysaa way tiri soo dhigaysaa mucjisadan ba hadda waxay tiri dhowr jeer baan isir way tiri blog miska saarta haddana waxaan isir way tiri iska daawada way tiri marka gabadha cudur bay waxaas ku noqdeen moogta aad iyo aad cudur bay aad ugu noqdeen marka waxay tiri markuu noo yimaado habeenkii markuu noo yimaado ayaa waxay tiri isaga oo sii socda bay tiri sii baxaya kamarada intaan qaado waxaan bilaabay bay tiri markuu sii socdo isagoo sii baxay kamarada intaan qaado waxay tiri inaan tag sawirku sii wati isagoo sii baxay yacni shakilkiisii sii socodkiisii ayaa waxay tiri sawiraya maa soo jeedkii waa sii hadduu soo jeed lagu arki lahaa mogta sii socodkiisii ayaa waxay tiri sawirtaa marka waxay tiri aniguna waxay tiri sii socodkiisa aan habeen walba isaga oo sii socda aan sawirayo ayaa waxay tiri Facebook soo dhigaa bay tiri aan ku dhada bay tiri ونكيجي ومتغنى شغلي نقتقي ونكيجي وسي صعدة this is my أنا حسن هذا بيتي سيشوت كيس بحيت من مش صادق الكتاب مركا سيدي أي سيشوت كيس مش وصل دقيقة سيلا قبردن فريم بيلا نقطة فيسبوك يدا خدر ستين وقتها أيا قبردي كلا أيا وحي نكيدي داركو كبحة وقولك كبحة إلا نكيد وقرنايساي سoo jeed baninkaagu de sidoo weegi wad garanaysaa fahamta gabadhii unba sawirka unba ninkan maalin walba dharkii ninkeedii sita ee shakalkii ninkeeda lehe sii socday ee gabadhan meesha soo dhiganaysa leedahay ninkeyga ay leedahay ayuunbay u fiirsatay waxay tiri ninkan dharkan shalay tuulu sitay waa ninkaagii haddana maalinta dambe dhar kale uu sito guriga kaga baxay isagoo sii socdan bay sawiratay this is my husband gabadhii kale aragtayna cajaybka bilaga hadda waxaan mijin baa wasagii soo dharkan shilay toolisiitay guriga ka baxay goorma hadana maxay toy ay hadana waxaan horta gabadhii shaki waa galay gabadhii weyni ayaa shaki galay gabadhii weyni ku shaki galay ayaa iyadii ayaa gabadhan kale la soo xidhiday oo message soo dirtay marka waxay ku tiri walaalo ninkaaga mabruuq bay ku tiri walaahi ninkaaga walaal waa nin qurux badan aad dhabarka ka sawirtaa dabeetana waxay tiri waan qosla waxaan ku wari bay tiri haa ninkayga ma jecla bay tiri inaan mataqaanay facekiisa Facebook ka dhigo iyo waxa ma jecla kabacdina waxay tiri walaalo waxay tooy marka ninkaaga walaahi ninkaagani waa nin aad qurux badan shakilka ninkayga uu eegeeyay I don't know walaahi bilaadanka ilaahay waa koobantahay adduunyadiyo dad isku wadaag ba ka soo baxay ninkayga uu yareeyay iyo I don't know dharku maalin walba xidhan yahay dhar u eegun buu ninkaaguna sitaa bay tiri way shakada markaa moogtahay marka waxay tiri gabadhii markaan dareemay bay tiri inay shakaday ayaa waxay tiri ku wari bay tiri masaasa laga yaabo bay tiri inay isku doqiyeen labada nin isku doqiyeen bal waayo walaalo oo ninkaaga sawirkiisa isagoo soo jeeda bal hadda waaba intaas mataankii ninkayga noqday ba hadda ii soo diray tus
waxay tiri dameen u diri karaa tusi karaa haddaan u diro aan tuso waxay tiri halkaas xiddiga dhaqaaqaya bay tiri wuxuu igu yidhi marka hore dhiilkooda ku jira haddaad mataqaanaa tustid ama aad sheegtid ama aad sawirkayga cilaankaaga dhaqaaqaya marka waa loo sheegay wax loo sheegayba dee miyay doonaysaa mataqaanaa ninka inuu cilo kaga dhaqaaq ka tago miyay doonaysaa maya waxay tii waan warwareeg in badan baan warwareeg in badan waa warwareeg in badan warwareeg maalintii dambe waxaan ku dhibaytay go-aan baan gaadhay inta waxaan ku dhibaytay sila baan ku noolay moogta because nin dee noloshii kugu daaha noloshii kugu qariyay iyadoo weliba 2 ciyaala haysa noloshii ku qariyay oo faamiligeedii diiday oo dadkii diiday cid walba diiday ee yiri haddad halka ay soo dhigtid waa habeenkii xawad ga dhimantay ee haddana naagti kale ku faanaya 24 saacadood soo dhigay soo sawiraya soo duubaya proud ku ah in gabadha kale ay yacni ay soo dhigto meesha oo uu ku faano iyadiina hortaagan oo kale ima soo dhigi kartid oo wax aad iyo aad loola yaabo moogta marka maalintii dambe waxay tiraan ku dhibay tiri ilo sawir ila gal xasuusa sawir xasuusa ila gal dabeetana wuxuu ku yidhi sawir xasuusan kula galahaa haddaan sawirka kula galo sawirka meel ma dhigi kartid ya sawirka meel ma dhigi kartid waxaan ku dhibay tii walaalo bilis waan ku baryayaa ila gal sawir xasuusahoo aan intaan weyniyo aan gidaarka sudho dadku markay kusoo galaan gurigana maxaad ku samaynaysaa waxay tii waan qaaday iyo waan dhigay meel baan ku qaranaya waan soo dejinaya laakiin intaan anagu joogno guriga hakaabay sugnaan ee xasuus weeyaan sida bay sawirkaga qaadatay uu ku ogolaaday wuxuuna kula heshiiyey markay dadku soo garacaan albaabka ama ku soo galaan sawirka deji xagoosa dhig laakiin markaad keligaa tahay iska dhigo iska sudho oo caadiya markaa sidii buu sawirka kula galay gabadhii sidii markuu sawirka gabadhii kula galay ayaa waxay tiri dee janisan hele weeyaan bay tiri nafteedana dee qanac fara badan bay runtii ka gaadhay go-aamo fara badan bay runtii ka gaadhay waxay tiri dayn fara badan baa waxay tiri uu mataqaanaa iyasay oo iqariyey oo bahdilay naagtan kale waxay samaynaysaa runtii waxay tiri waxay ii noqotay bay tiri wacyigelin dheeraada ayay ii noqotay iyo inaanu dee ninkani aanu rabinu yacni iyadaba ka hawoonayo aanu rabinu yacni arana haddana wuxuu kasoo doonay ma garanayo wuxuu kasoo doonay talo ma garanayo wallaahi markaa waxay tiri sawirkii aniga isagoo aan wada galnay ayaa waxay tiri dee Facebook soo dhigtay kabarkii ma saartay bay tiri waxaan isbay tiri xalaale wixii doonaya ha ka dhacaan isla markiiba da gabadhiiba qac indhaha kusii soo aragtay message buu soo gashay xabti walaa ninkaygina waa ninkaygii waa ninkaagiiba haa waana waa ninkaygii way qabaay oo siduu ku qabaa way qabaa 2 carruuray ka dhalay bay masaas ahaa oo adigu horeygi madarka jirin miyaa ninkan inaan meesha soo dhigdhigto aan ku dhahdo waa ninkaygii inuu madarkayni waan arkaya haa oo maxaa markaa dhacaad mar hore igu sheegud hadday arrintaasi dhacday isagaa igu yidhi ha sheegin ee qarinaya arrintiisi bay ku qaxday ninkii markaa ninkiiow gabadhii uu ku faaniyey meelaha dhigdhigayey mataqaanaa korii hoosu siday la badboodayey caanka la badboodayey lahaa watan gabadhaydii watan xaaskaygii watan dhedhe u lahaa runtii markuu guriga habeenkii soo galay dee tii dheerag baa lagu dhigay midaan laga sheekayn karaynin ayaa lagu dhigay runtii markaa hugiisii dibaddaa loogu qubay waa la eryaday boolis baa loogu yeedhay adigu dharkiisii wuu dibadda ka urursaday dabeetana gaadhigu soo ritay haw iyo balowuu soo yiri gabadha buu kusoo noqday uu yimi adaa waxaa igu wacan adaa gurigiibu ku jajabiyey baf gurigaygi wadiga soo dumisay adaa waxaa igu wacan waxay tisagoo halkii budboodaya oo qaylinaya ayaa waxay tiri de jiiraankii nagu xigay bay tiri yaabay oo maxay boolis u dalbadan bay tiri oo nin baa halkan final ah guriga jajabinaya kaalay soo yaaca booliiskii cararaya ayaa yimi booliisku markuu yimaadeen hadda isagiiba meesha laga qabto laga kaxeeyey wax lagu maxaad ka rabtaa xaafadda yaa markaa sidii baa lagu kaxeeyey waxay tiri waxba maan jaaji karaa in markay booliiskii u yeedhan yirahdeen ninkan doonaysaa dee gurigaaga jajabinayay waa kasoo doontay waxba maan ka odhan bay tiri waxaan ku dhaway tii iska sii daaya laakiinse waxay tiri ninka sidii baan ku kala darnay sidii baan ku kala maqanahay haddaba qisada maxaan uga daranayna waxaan qisadan idinku soo bannaan dhigay waxaan idinku soo bannaan dhigay inay jiraan dumar aad iyo aad u fara badan oo jecel inay baxdil galaan inay galaan qarsoodi in iyagoo oo nool oo xay ah oo ilaahay nafgeliyey oo sharaf iyo karaamo leh ay damcaan inay naftooda ay qariyaan because of what qofba hadduu ku yiri isqari oo kaa hawooday ma u malaynaysa qofkaasi inuu jacayl ku qabo oo ku jecel yahay no way qofka ku jecel waa qofka kugu faana qofka ku jecel waa qofka ku yarada isu soo ka garabtaaga ha isqarinin weeyaan kaasaa layaa qof ku jecel laakiin qof ku qariyey oo ku yidhi
hay sheegin isqari yacni naftaadii dhammayd qari oo isqari ee hay sheegin qofku yidhi ma kula tahay inuu jacayl ku qabo bakaas waxaan ogahay dumar aad iyo aad u fara badan inay ku jiraan qarsoodiga iyo guur qarsoodiga oo niman ay qarinayaan ayaan ogahay runtii bakaas qisadan waxaan usoo qaatay oo aan idinku soo bandhigayna waxay ahayd wacyigelinta gabadhaa ku dhacday iyo dhibaatada gabadhaa ku dhacday inay dumar aad iyo aad u fara badan ay haysato runtii oo iyadu isleedahay waxbaad ka faa'iidaysaa beel yari iyo wax yar ku keen iyo wax yar baad ka faa'iidaysaa haddana iyada ay bahdilintahay qarsoon tahay adaa bahdilan qarsoon runtii dibaanskudiyo yaa bakaas gabadhan kale way soo bandhigtay cid walba wogta inuu ninkeedii wataa ku faanaysa ee bannaanka soo dhigtay ee kala bedelaysa yadaa iskale waana la ogyahay dadkuna way la socdaan laakiin adigu waaba isku qarasho isku bahdilsi ilaahayba kuma bahdilni ilaahay baaba saa kuu dhigay saa quruxdaa ku siiyey caafimaadkaa ku siiyey sharaftay karaamadaa ku siiyey yoman ben kaa dhigay qof kugu faana oo isgarab taagtid oo gacanta ku qabsada oo ku yidhahda dadka ku tusaa ku watan gabadhaydii oo barood adiga naftaada kaa dhiga ayaa la raadsadaa oo la guursadaa laakiin weliga yaalaha qarsoodi lama galo laysmana qariyo weliga yaalaha haddaad isqarisid oo aad isqarisid naftaadii waxaad qarisay dignitigaaga eed qarisad xabaar ku ritay marka ha isqarinina dumar fara badan oo waxaa jira intay nimanyahaan guursanayna sidaa isku qariya oo bahdil galaa jira ha isqarininaan idin leeyahay hadduu nimba ku yirahdo ku yimado ku yirahdo ku guursanayaa isqari no way waxaasi guur maaha waxaasi guur waa guur xaaraana weeyaan indhano inta ku yimaado kuna nawan ku guursanaya isqari maxay tahay waxaasi waxaan isku qarinaya waay ilaahay baa ma qarinaya waaba isku qarinaya wada guursanaysaa soo maa warta soo bannaan dhig dad doorisa guursatay aan qof isqariye maba ihi ilaahayna imu qarinin isma qarinayo laakiinse haddada hame guurba ay ku gasho doonaysa inaad ii guursatid yacni dee fagaaraa iskeen waxaa cad soo maa aad baan idin salaamaya dhammaantiin ba aad baan idin salaamayaa khayr far badan baan idin rajeynayaa dumara waxaan leeyahay isqarinina iyadun ilaahay idin qarinin